هذا halkan wuxuu ka mid yahay muuqaalo taxana ah oo aan uga hadlayay habaqarska wanaagsan ee ardayda imtixaanka u fadhiisanayso muuqaalkan waxaan kula wadaagi doonaa farsamo lagu magacaabo Feynman method farsamada Feynman waxay ka kooban tahay ilaa 4 qaybood waxa u baahan tahay inaad taqaano mowduuca aad akhrinayso ama labo mowduucaas waxaad ka qortaa wax allaale iyo wax aad taqaanid marka aad qodobkaas labaad ku gudubto waxaad u baahan tahay qof kale saaxiibka ama gurigaaga qof ka tirsan inaad u sharaxdo wixii aad soo akhrisay ama wixii aad qoratay waliba waxaa la isticmaalaa sida inaad xulug shanaad ama koowaad ama labaad oo kale taa wax ugu sharaxayso oo kale inaad ugu sharaxdo qodobka afraad ee ugu dambeeya ee farsamada muhiim u ah waxa waaye inaad soo ururisaa ama aad qortaa maalihii gaabiska uu ka jiray yani wixii aad fahmi weysay ama aad aqoon weysay inaad qorto oo diiwaan gelisaa kadib aad dib u soo bilowdaa farsamada Feynman ardayga waxay ka caawinaysaa inuu waqti fara badan oo uga bixi lahaa waxyaabo badan inuu aqriyo inuu u soo koobto kaasoo ka saacidayo ardayga inuu wax badan waqti kooban ku aqriyo. Thank you very much. See you soon inshallah. Bye.